walaal markii hore waxaan joogi jiray Miami marka Miami aan badan ku xirnaa ari Georgia la geeyay hadana Miami lagu soo laakiin markii u dambeysay Miami laga soo qaaday meel badan ay soo mariyaan taas horta jaajisa mar hore kumay in wadanka laga celiyo waa badan dhalinyaro badan aan qof kasta kiiskiisa ku dagaalamay kiiska de markuu dhamaado ama qofka waxa la siiyaa wax order removal oo wadanka in laga celiyo marka qofka 3 bilood markay haayaan uu sii deyn jireen waxaan 3 bilood ay jireen kadibna banaanka dhigi jiray or Mareykan isaga noolow qof la celiyo muun jiray konton wala kadib waxay isku jireen adi dhowr iyo 20 dadka aniga soo galay oo borderka isku soo dhiibay iyo inta kale oo dad meesha adi waxoogaa joogay dadka waxa ahaayeen dad ayagana sharciyadooda laga laabtay dad familkooda isdagaaleen dad daraagis wax lagu qabtay dad noocaas isku jireen hadi markii hore laba kiyaati laga socdo labada kiyaati waxaana looga reebay Kenya looga reebay markii hore Soomaaliya ka tagay waxaan qaatay fiiso oo Brazil ka tagay Brazil markaan ka tagay ilaa visa watay 8 kun laga gatay inta kale waxaan ku maray Beirut waxaan ku galay lug gaari waan ku maray bas adi ilaa waxaan ku socday Ecuador la sidoo kale gaari aan uga baxay bas Colombia bas aan ku galay oo uga baxay marka Colombia marka laga baxaa waxaa la maraa badda la maraa doonay bankas ka raacnay doonta marka ka raacnay waxaan ku degay Panama jungle-keeda meel duuro hawda marka halkaas aan soo bari kale weynay dul jungle oo hawda way kooxaadi 5 6 7 8 9 abad intii wadada isku aragtay siracda may jungle-kaas marka la gaaray horta dadku waxay isugu xireen dad mukhallas qaato lacagtooda wata laakiin markaas anaga isticmaalayno lacagtaada meel isku marinayso waayo qof kaligiis wada ma mari karo meesha mataqaan afna mataqaan bas Spanish ku hadlaan marka waa in lacagtaada ku wado marka qof lacag siinaysan qofkaas idin wadaayo idin geynaya Mareykan wadanka marka gallo mukhallas ka qaada lacagtiisa $2,000 $3,000 mukhallaska wadanka wuxuu ka cunaa 3,000 ka cunaa marka lacagtaada waxay ku tahay documenti marka loo qabto booliska qabto oo ku baaranayaan ama xubna ma ku baarnaan waxaana siinaysaa wax isbaana marka waxay ku weydiisaa waa inaad siisaa adoo mukhallaskii kula socdo warshada wuxuu yahay meel aan ka bilaabmay walaal waxa la yiraahdaa Salman Maxamed ala la yiraahdaa walaal walaal Mareykan waxa soo galay 2015 bishii 11 marka interview baa laga qaaday adigu interview waan ku baratay maxkamad baan ayaan waxaan aaday 2016 bishii 8 ayaan maxkamadda tagay waxaan joogay markii hore Texas baan ayaan ka soo galay kadib markii dambana January 2016 ayaa laga soo transfer 14keedii Georgia la keenay Georgia marka aan ku dhacay kuna dhamaystay kiiskaygii maya xabsigan ku jiray mar laba banaanka ma aadin walaal isku mid baan ahayn Brazil baan ayaan soo marnay Ecuador Beirut luqasaan soo marnay sidaas Beirut kugu sheegay walaal aniga safarka walaal $3,000 ba ayaa iga baxday dhowr jeer ba